dowladda Mareykanka ayaa muuqata mid ay qasab ku noqotay in ciidamadeeda ay kala baxdo dalka Niger kadib cadaadis xoog leh oo ka soo wajahay taliska militariga ee la wareegay talada dalkaasi. Taliska militariga Niger oo sii wada cadaadiska ay Mareykanka ku saarayaan in ciidamadiisu uu kala baxo dalkaasi ayaa dhawaan ku dhawaaqay inay soo afjareen heshiiskii militariga ee Mareykanka kula jiray dalka Niger kadib afgambigii bishii Julaay ee sanadkii hore ay xilka kaga tuureen madaxweyne Maxamed Bazoum. General Patrick afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegay in Washington ay wafdi u dirayso Niger si labada dhinac ay uga wada hadlaan qorshaha ka bixitaanka militariga Mareykanka ee Niger. Afayeenka ayaa warbaahinta u sheegay in wafdiga tagaya dalkaasi uu noqon doono mid ka kooban oo ay qayb ka yihiin saraakiisha ciidamada Mareykanka ee Afrika. Waxa uu sheegay in hadallada lagu qorsheyn doono qaabka ay ciidamada Mareykanka uga baxayaan dalkaasi ku yaala Afrikada galbeeda. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger ayaa tiradooda lagu sheegaa 1,100 askari, waxayna dalkaasi ku leeyihiin 2 saldhig oo uu ku jiro saldhigga cirka ee Airbase 201 kaas oo qiyaastii 5 kilomitir u jira magaalada Agadez. Saldhiggan oo Mareykanku dhisay ayaa waxaa ku baxday oo lagu dhisay $100 milyan. Mareykanka ayaa saldhiggan u adeegsan jiray howlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah kooxaha Islaamiyiinta. Reer galbeedka ayaa iskaashi dhow la lahaa militariga Niger intii uu xukunka hayay madaxweyne Maxamed Bazoum oo xilka laga tuuray 26 bishii Julaay ee sanadkii 2023. Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa madaxweyne Bazoum u arkayay saaxiib muhiim ah, si dhowna ula shaqaynayay dadaalada ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan faafitaanka kooxaha Islaamiyiinta ee ka jira galbeedka Afrika. Mareykanka, Faransiiska iyo dowladda Maxamed Bazoum ayaa iskaashi lahaa la dagaalanka jihaadiyiinta gobolka Saaxil ee Afrika. Bazoum ayaa xilka intii u dhaxaysay 2 bishii Abriil ee sanadkii 2021 ilaa 26 Julaay ee sanadkii 2023. Bazoum ayaa talada la wareegay dal ay ka jiraan faqri iyo xasilooni darro. Bazoum ayaa ahaa madaxweynaha kaliya ee dalkaasi ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay. Hogaamiyaha militariga Niger oo afgambiga sameeyay General Abdurrahman Tajin ayaa xiriirka ay la lahaayeen reer galbeedka u weeciyay dhanka Ruushka. Moscow ayaa militariga Niger ka taageeraysa tababarka ciidamada iyo weliba qalabeyntooda.